guddiga joogtada ah ee sharciyada iyo cadaaladda ee golaha shacabka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya oo ku guda jira socdaal shaqo oo isugu jira kormeer iyo dabagal ku aadan ka salgaaridda natiijadii waxqabadka qorshe istiraatiijiyadeedkii isbeddelka iyo dib u habeynta ee laga hirgeliyay hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka dowladda deegaanka Soomaalida 3 sano ee la soo dhaafay ayaa kormeer ku tagay maxkamadda guud ee deegaanka Soomaalida. gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda guud ee dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdikariim Axmed Maxamuud ayaa guddiga u soo jeediyay warbixinadii waxqabadka howlaha habeynta hay'adaha garsoorka ee 3 sano ee la soo dhaafay, waxayna guddigu indhayn iyo kurgalid ku sameeyeen goobaha adeeg bixinta ee maxkamadda guud ee deegaanka Soomaalida. gudoomiyaha guddiga joogtada ee sharciyada iyo cadaaladda baarlamaanka federaalka Itoobiya Marwo Khadiija Yaasiin oo ka hadashay natiijada kormeerka ay ku tageen maxkamadda guud ee deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay in maxkamadda guud ee deegaanka Soomaalida ay ku guuleysatay qorshe istiraatiijiyadeedkii dib u habeynta, waxaana sheegtay in guud ahaan natiijo aad u wanaagsan iyo waxqabad muuqda laga hirgeliyay, iyadoo xustay in ay bogaadin mudan yihiin iyo dardargelin howlaha dib u habeynta ee laga sameeyay dhinacyada kala duwan ee garsoorka sida shuruucda shaqo hagaajinta, goobaha adeeg bixinta, kobcinta cududa shaqaalaha, xaqiijinta madax bannaanida iyo isla xisaabtanka garsoorka, hirgelinta aaladda tiknoolajiyadda casriga ah ee maxkamadda guud ay hirgelisay, isla markaana ku dayasho ay mudan tahay maxkamaddu. ugu dambeynna waxay guud ahaan kula dardaarantay mas-uuliyiinta maxkamadda una soo jeedisay inay dadaalada ballaadhan iyo tallaabada ay qaadeen hay'adaha garsoorka dowladda deegaanka Soomaalidu la sii laba jibaaro. intaasi kadib guddigan oo ujeedadoodu ahayd kormeer iyo dabagal inay ku sameeyaan dib u habeynta lagu sameeyay sidoo kale hay'adaha booliska deegaanka iyo natiijadii dib u habeynta ayaa ka dhageysay komishinka ku-xigeenka booliska deegaanka Soomaalida Sarreeyagaas Xasan Mooge Maxamed qaab shaqeedka booliska iyo hanaanka sugidda amniga deegaanka oo ah ka ugu wanaagsan dalka Itoobiya. waxay sidoo kale guddigu booqdeen xabsida ku yaala magaalada Jijjiga, gaar ahaan xabsiga heer deegaan iyo xabsiga gobolka Faafan, waxayna qiimeeyeen qaabka loola dhaqmo maxaabiista iyo sidoo kale in maxaabiista la mariyo sharciyada loogu talagalay. guddigan ayaa waxay booliska deegaanka Soomaalida ku bogaadiyeen nidaamka ay u sugaan ammaanka deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan dalka Itoobiya, waxayna guddigu uga mahad celiyeen qaab shaqeedka booliska iyagoo kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan shaqooyinka sugidda amniga ee u hayaan bulshada deegaanka Soomaalida.